فيديو waxaan rabaa inaan kula wada xigmad kale aad u culus oo aan uga hadlayo mid ka mid ah waxyaabaha aad baruurta jirkaaga uga ridi karto oo caloosha ku jari kartid si ay six pack u soo baxaan xididadaadii murqaha u soo baxaan baasha culays badan oo foorxumo badan oo caloosha ay isaga jari kartid midkaasu waa midka loo yaqaan intermittent fasting ama soomkii marka intermittent fasting maxay tahay sidee loo sameeyaa khaladaadka goormee la sameeyaa iyo sida ay soonka caadiga oo waajibka uga duwan tahay ayaan rabaa inaan videogan uga hadlo daawo ilaa dhamaadka wax badan baad ka faa'iidi doontaa intermittent fasting ana shakhsi ahaantayda waan jeclahay wiigii iyo bishii dhowr mar baan ku tuurtaa aad bay u fiican tahay waa jeclahay faa'iidooyin fara badan bay leedahay sida saxda u samaysan natiijo degdega yaad arkaysaa inay calooshii isdhinto oo baruurtii jirkaaga ka dhacday caafimaadkaaga guudna uu kor u qaadmo yaad ogaanaysaa horta marka koowaad maxay tahay intermittent fasting waa soon laakiin aan soonka caadiga waajibka aan soonno kale aan ahayn way ka sahlan tahay inaad 12 saac oo maalintii dhan sooman tahay ma aha sidoo kale waxay uga duwan tahay intermittent fasting inaad cabi kartid biyaha inaad cabi kartid shaah aan sokor iyo caano lahayn caleen iyo biyo bes la isku qasay yaad cabi kartaa liin waa ku darsan kartaa sidoo kale waxaad bahalkan la cabi kartaa koofiga aan caano iyo sokor midna lagu darin koofiga madow bes wax sonkor lagu darin wax kale lagu macaaneyn malab lagu darin asagana sidoo kale waa cabi kartaa fikradda ka dambaysa marka ma ahata fikradda ka dambaysa waxay tahay bahalkan la yiraahdo waqti yaad waxa jirkaaga siinaysaa uu cuntadii hore ku bahalkan ku shiido baruurtii jirka gashayna uu dib u isticmaalo waa fahmaysa sooma marka jirkii baad waqti siinaysaa cuntadii ku digest gareeyo jirku markuu cunto la'aan ku dhacdo beerka ayaa waxaa lagu jirku ku kaydsadaa cunto glycogen loo yaqaan glycogenkaas markuu dhamaysto baruurtii ayuu jirku aadayaa misna baruurtii ayuu energy u isticmaalayaa marka adiga waxaa laga rabaa wax calories leh inaadan jirka uusan gelin biyo calorie male koofiga madow calories male shaaha ama green ha ahaado ama shaaha caadiga ha ahaado oo sokor iyo caleen lagu darin caano calories male marka ma u baahan tahay 12 saac inaad sooman tahay ma 12 saac ma u baahnid inaad soontid sida soonka waajibka oo kale talaba anigu sidaan u sameeyaa anigu wax markaa rabo inaan sameeyo waxaan sameeynaa subaxina soo kacaya kofigayga madooban cabaya shaqadeedan iska aadaya 7 saac yaan qadadeeda caadiga cunaya qadada qalad kale oo dadku sameeyaan oo intermittent fasting u shaqeyn waxa kamid ah dadku inay ay cunto khaldan cunaan sababta soonka waajibka markii la sooman yahay maalinta dhan adoo sooman dad badan ay miisaanku u kordho waxa way galabkiiba wax cunaysa sambuus wax la shiilay canjeela dufan baqti way iska buuxanaysa marka intermittent fasting ani markaan sameeyo qadadii aan cunaya muhiimadaas helay maxay tahay waacdi baan ka mid total calories maalinta aan cun lahaa yaa hoos u dhacay waa faa'iidada koowaad total calories hoos u markuu dhaco oo maalinta isticmaalaysa laazim waxa inuu miisaanka hoos u dhacay faa'iidada kale oo helay maxay tahay inay calooshayda digestive systemkayga uu xoogaa clean garoobay jirkayguna uu baruurtii dhimay isticmaalay faa'iidooyin fara badan bay leedahay faa'iidooyinka kale ee leedahay waxaa kamid ah inay diabetes hoos u dhigto blood pressure inay hoos u dhigto maskaxda markaan aan rabo assignments wax adag inaan ka shaqeeyo waa Soomaali hadaad inaad si fiican maskaxdaada u shaqeyso bahalkan liraa sidoo kale waxaa fiican inay caloosho maran tahay dad shaqo adag arday aad tahay waad sameynaysaa waxaad sidoo kale intermittent fasting waa ku fiican tahay baad exam leedahay oo kale wafii madow nafsi maskaxda shaabay noqonaysaa marka sidoo kale cognitive ability-gaaga ama maskaxdaada shaqadeedu kordhaya marka faa'iidooyinkaas ayay leedahay laakiin ay ka hoos baxeen intermittent fasting qof kasta uma fiican caruur haddaad tahay iyo teenage iyo haddaad tahay dadka soo koraya ma isticmaalaysa haddaad tahay ma hooyo uur leh haddaad tahay dhakhtarkaaga kala tasho bahalkan la yidhaha qof diabetiskiisu aad u sarreeyo oo bahalkan la yidhaha cudurro kala qaba haddaad tahay dhakhtarkaaga kala tasho laakiin qof sideeda kale iska caafimaad qaba haddaad tahay intermittent fasting 6 pack degdega ay ku siinaysaa ya anigu waa isticmaalaa bahalkan la yidhaahdo runta haddaan kuu sheego markaan shuluqa ahaa iyo markaan 6 packayga arkay waxaa u dhexeeyay intermittent fasting bay ahay intermittent fasting soonka caadiga haddaad soontid oo waajibka ajir aad ka helaysid waxaad xasuusnaataa inaad bahalkan la yidhaahdo markaad afuraysid cunto nafaqo leh
inaad cuntid laakiin waxyaabaha la shiilay sida sambuuskii hilibkii la shiilay bahalkan cabitaanka xumaa qasqaska ahaa oo baktiga ahaa Soomaalidu eberka siiyey shaaxi sonkorta badnaa yaad iska ilaalinaysaa marka inaad fahamtid waa intermittent fasting faa'iidooyin fara badan ayay leedahay isku day faa'iidooyin fara badan baad ka helaysaa dhibaatada kale oo badan oo ummadda Soomaaliyeed waxaa ka mid ah bahalkan leeyahay wax sonkor la maanta dhan la cunay maxaa dhacay markaas haddii maanta dhan wax sonkor la afkaa gelisid maanta dhan jirkaaga bahalkan leeyahay insulin levelkiisu wuu sarreynaya insulin levelka hadduu aad maanta dhan u sarreeyo waxaa dhacaysa jirkaagu inuu insensitive ku noqdo bahalkan leeyahay hormonka insulinka taasuna ay keento diabetic type 2 nooca loo yaqaan ya marka intermittent fasting baan ka hadlay intermittent fasting faa'iidooyin fara badan bay leedahay waxay miisaankaaga hoos u dhigaysaa digestive systemka u fiican tahay maskaxda u fiican tahay waxay u fiican tahay bahalkan blood pressure u fiican tahay waxay u fiican tahay bahalkan yiraahdo waxyaabo fara badan bay u fiican tahay wadnaha u fiican tahay marka samee sidaas ayaad samayn kartaa ma laazim aan 12 saac maalintii oo dhan aad soo maahan bahalkan yiraahdo subax quraacda u gambi doorkii qada fiican oo nadiif ah hadda dib u sii dhigi kartid oo gool kartid inaad أنا كوزير maybe لا 10 ساعة لا كوي 10 ساعة إسكجار then كنت في عن مهمة ما واصل وحرام عن كرا وحلي نعم بتشتو وافعنا سوما أيوة بينا وقتنا كفايتين فيديو جا وحصو قرطة سؤالين كومنتي وكسو قرا ولا كان ولا وأنا ما تنتي سيدا عادي ويدين تعيد ما أنتي